السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين كسو دواada barnaamijkii isbuuclaha ahaa oon ga jawaabayo su-aalaha insha allah rag baa noogu jiro meesha qofku su-aal qaba insha allah gacanta soo taago haddaa rabta qoraal waxaa kusoo qori kartaa discordka facebooka ama waxaa kusoo qori kartaa meeshan oo chatka zoomka haddii aad rabtina ka qayb qaadata barnaamijkan discordka soo geli kartaa oo linkiga discordka si aan aad u aragtid micnaha waxyaalaha halkaas soo gelino dad badan aa ku jiro maasha allah marka hadda su-aalaha waxaan ku bilaabaa su-aalo oo dad iisoo dirdireen oo messageka welina ma akhrinin marka haddii aad su-aal qabtid meesha waxaan prioritiesina qofka ku jiro oo gacanta taagto marka insha allah gacanta soo taago si dad badan oo su-aalo iisoo diray inaa akhriyo u baahan لكن إن شاء الله مستر جيل go ahead مستر جيل نقول بلعبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. عليكم السلام. الله ربنا. سفعا. أستاذ waxaan rabaa inaan ku weydiiyo difference u dhaxaya database kan luqadahan ku shaqeeyaan SQL iyo MySQL iyo SQL Server iyo SQLite waxay dhahaan farqiga u dhaxeeya sidee u kala shaqeeyaan. Exactly. And so معناها مع SQL iyo SQLite waxa u dhaxeeya miya SQL iyo MySQL. Okay. So SQLite wax yaran ka isticmaalay inta badan ma isticmaalin badanaa waxaa loo isticmaalaa developmentiga production aa loo isticmaali karaa developmentiga markaana waxaan ka wadaa developmentiga for example haddaa software weyn leedahay badanaa ma arkaysid application waaweyn oo isticmaala SQLite badanaa waxa weeye waa saa aniga arkay dadka waxay u isticmaalaan in ay ku sameeyaan ismo applicationka lagu dhiso maxaa yeelay waxay la shaqayn kartaa oo macnaha waxaa u bedeli kartaa si easily waxaa ugu bedeli kartaa MySQL so SQLite wax aad badan kama garanayo because xoogaha yar ma isticmaalay waxaan u isticmaalay Node.js waxay waa normally sida MySQL u shaqaysaa for example let me share my screen so I can show you just waxaan fiirinayo I'm just looking at dadka waxay ka dhaheen so qofka wuxuu leeyahay goormee la isticmaalaa SQLite wuxuu leeyahay all applications that require probability and don't require expansion so saa ujeeda wuxuu leeyahay qofkan applicationka aan expansionka u baahnayn expansionka waxaa weye in la ballaariyo applicationka la weyneeyo aan u baahnayna SQLite loo isticmaala in case where the application needs to read write files disk directly and so kana waxa weeye markii ay applicationka ay directly diskiga ka akhrinayso information so just this one how very technical lakin markii noqoto in general SQLite waxa weeye waa usually ma ahan application weyn hadaa leedahay SQLite kuma fiicno sababta xataa light marka aragto meelaha waxyaalaha lagu daro lightka badanaa waxaa lagu daraa waxa oo macnaha aanan ahayn complete aan ahayn 100% so arkaysa application oo ku jiro appska ku jiro internetka waxa arkaysa ku dhahayo something light waxay ka wadaa macnaha tan waxa weeye waxyaalihii ugu fiicnaa dhan waan ka bixinay laakiin xoogaha aad isticmaali kartid ku jiro basically hadaa rabtid inaad waxyaalaha khatarta rabtid inaad isticmaashid waxaad soo qaadan kartaa maxaa la dhihi jiray the full application but laakiin MySQL waqti dheer jirtay waa company waaweyn isticmaalo almost all companies will isticmaalaan some way somehow and waxa way MySQL waxa way waa table based way and waxa of course qof kasto development sameeyo garanaa MySQL waxay isticmaashaa luqadda SQL and waana very powerful waxa way maxaa la jira server ama database ka wada inkastoo ay jiraan kuwo kale oo kasii waaweyn ay jiraan oo ka qatarsan Google camalku isticmaalaan iyo Facebook way ka duwan yihiin MySQL inkastoo maybe ay jiraan waxyaalo ay isticmaalaan MySQL laakiin boqolkiiba 90 Google camal for example ma isticmaalaan searchka Google searchka waxay isticmaalaan database kale isticmaalaan oo loogu talagalay oo loo customize gareeyay inuu wax search gareeyo laakiin haddaa leedahay website yar ama application xoogaha even hataa million oo dad haddii soo galayaan dhowr million oo dad no problem way handle garan kartaa laakiin markii sheekada billion gaarto markaas waxay noqonaysaa informationkaad wuxuu noqonayaa information complex uu noqonayaa
marka table inaa wax kasta relationship aa geliso waa adkaanaysaa oo wax kasta aa ka dhigto relationship aa kula xiriiriso waxyaala waxaa jiri doona aan relationship lahayn meelo kale la xiriirsan habab kala duwan iskugu daba xiran marka badanaa dad qaarkood waxay isticmaalaan like MongoDB camal waxaa weeye waa ma ahan sida camal table based ma ahan iyo waxaa jira database kale oo loo isticmaalo arrimaha oo aan adan u baahnayn table iyo relationship adan u baahnayn so labadooda midkaana more powerful MySQL more powerful SQL waxaa weeye waa MySQL kale laakiin just xoogaha way ka yara xoogeeda ka yar okay let me see dad kalena gacanta taagayaan okay so dada isoo qorqoraya wax I hope taas in ka jawaabto gele ustaad waa masantahay okay qof wuxuu yiri asalaam ustaad waxaan ku weydiinayaa waa maxay UX iyo UI iyo maxay ku kala duwan yihiin okay that's a good question qof wuxuu yiri UX iyo UI maxay ku kala duwan yihiin maxayna yihiin waa adag tahay badanaa xataa English in lagu sharaxo waa adag tahay UX iyo UI so waxay noqonaysaa we have to Google UI versus UX so UI waxa weeye waa muuqaalka website-ka ama website ma ahan wax kasta ahaato ilaa ma ahaato app ma ahaato design style waxa rabta ahaato so UI-ga waxa weeye waa muuqaalka kore weeye wixii micnaha aragtida la arkayo waay UX waxay u taagan tahay UI waa waxay u taagan tahay user interface I think user interface UX waxay u taagan tahay user experience u taagan tahay so user interface waxa weeye for example hadda website-kan Google aan ku jira camal box-kan search-ka gacanta dul saarayo uu i highlight gareynayo waa user UI way macnaha like habka u eg tahay waa UI laakiin aniga waan haddii ahaan lahaa kaba soo qaad meeshaan box-kan hadduuba muuqanaan lahayn borderkiisa dhanba meesha ka bixi lahayd I don't know Google wuxuu complex waay but let's say borderkan ka bixinay waxa dhan we remove the border let's just get rid of the border so hadda borderkan ka bixina so website-ka hadda markaan soo galo aan saan u fiiriyo ma garanayo meel aan wax ku qoro so taas waxaa lahaa user experience aa lahaa UX waaye so qofka inuu yaqaano basically meeshii uu wax ku qori lahaa oo for example uu kala garanayo waxay si kala yihiin oo habka uu u isticmaali lahaa website-ka u fududahay waa user experience weeye waa wixii micnaha meeshii uu website-ka sida loogu fududeyn lahaa qofka u dhex mari lahaa waa user experience taas waxaa weeye qofka wuxuu experience uu ku leeyahay website-ka oo markii uu isticmaalo siduu dareemayo ayaa user experience lahaa UX-na waxaa weeye waa style-ka habka u dhigan yahay website-ka u dhigan yahay website-ka ma qurxan yahay ma xun yahay ma fulxun yahay ma isku dubridan yahay all that stuff user interface la dhahaa taas waa UI so labadoodu way kala duwan yihiin so halkan saa ujeeda wuxuu leeyahay user experience is the interaction and experience you user have with the company's product service so hadda saan ka hadlaayo aniga saan dareemayo website-ka hadda markaan soo galo website-kan oo Google camal meesha kore haddaanan arkin box-ka search-ka ahaa waxaa dareemayaa okay meeshee wax lagu qoraa ma garanayo ilaa gacantaan dul saara camal markaasaan garanaya so dareemahaas aan dareemayo inaan waxba micnaha kala habaysnayn user waxaa la user experience user interface is a specific set of users interaction with for example UI can deal with the traditional concept like visual design elements so UI na waxa weeye waa kaba soo qaad buttonkan hadda camal oo search-ka waxa weeye waa element of UI waaye x-tan meesha saaran waa element of UI sababta x meesha u saaran tahay adiga niyadaada micnaha you already waa og tahay x micnaheedu waxa weeye wax tirtir camal ama wax ka bixi meesha waaye calaamadan microphone-ka ayagoonan meesha microphone ku qorin waa garanaysaa microphone inuu yahay micnaheedu waxa weeye haddaad inaad wax dubtid camal waaye so UI-ga waa saas weeye waa muuqaalka wax u egyihiin so saasay ku kala duwan yihiin labadooda waa very maxaa la jiray complex concepts weeye laakiin muhiimadda u baahanta inaad ka ogaato waxaa weeye markii lagu dhaho UI waxa weeye wax adiga aad qabanaysid hadda style ama designer aad tahay oo design garaysid website-yada ama appska ama whatever aad design garaysid waxaa tahay UI designer aad tahay haddii aad tahay qof ka fikiro siduu habka website-ka qofka u isticmaali lahaa oo overall micnaha
experiencega uu qofku ku leeyahay website-ka qofku muxuu dareemayaa website-ka inuu isku dhex daadsan yahay muxuu dareemayaa in uu kala baxsan yahay waxaasoo dhan waxaa weeye waa user experiencega wey taasna waa dad gooniya qabto badanaa dadku isku dhex daraan laakiin waa kala yihiin waana wax aniga hadda aan aad u xiiseenayo oon rabo inaan gudaha usii galo maxaa yeelay waa of course wixii dadka haddeertaan website carada kasoo bateen applicationada carada kasoo bateen marka micnaheedu waxaa weeye haddii aad waa inaad leedahay wax extra so developmentiga haddaad taqaanid aad taqaanid UI and UX experience aad taqaanid ama UI UX aad taqaanid taas micnaheedu waad kasii ficnaanaysa dad kaloo xoogaha markaa shaqo raadinaysa waxaas way ku anfacaysaa wey hobtaas inay kaa jawaab su-aashaada okay qof kala gacan taaganayo waan ka jawaabaya insha allah su-aalaha meesha ku qoran Ahmed go ahead Ahmed waa ka soo bixi kartaa mute insha allah okay I think Ahmed waa technical problem haysto dhib ma lahan okay so qof kala ii soo dir su-aal oo leeyahay assalaamu calaykum ustaad waxaan ku weydiinayaa waa maxay okay so tan already on ka jawaabay okay so qofkan kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum teacher hotel management system baan ku dhisay PHP as a backend development waxaan u baahanahay in aan wax ka ogaado xagga security application-ka okay that's good question markii noqoto security-ga let me just share my screen markii noqoto security-ga waa wax micnaha u baahantay inaad ka fikirto markaad dhisay application run ahaantii aniga xataa recently dhowaan waan aad baa uga fikiraya arrimaha security-ga waxaan ku daray application-kayga arrimo oo security oo la xiriiro oo micnaha naga caawinayo dhinaca security-ga waxyaalo badan inaad ka fikirto u baahanta markay noqoto security waxaa u baahanta inaad ka fikirto for example waxaa u baahanta horta log-inka iyo database-ka waxa ku jiro inay fiican yihiin oo encrypted yihiin so encrypted-ka waxaa weeye waxaa isticmaalaysaa systemyada oo encrypt gareeyo password-yada isticmaalaysaa so way kala duwan yihiin way badan yihiin inaan detail usii galo ma rabo kuwa waxaa jiro aanan horey loo crackgareeya jiro oo micnaha haddii aan haysto kaba soo qaad hashed passwordkii oo hash garaysan haddaan haysto meelo waxaa jira aad tegi karta aad dhigi karta just hash dib iigu soo celi decrypted ka dhig so way passwordka dib usoo celinayan kuwa haddeertaan oo waxaa jiro aanan micnaha aan la hash gareyn karin aa jiro marka midka ugu dambeeya isticmaal markay noqoto dhinaca database waa taas PHP markay noqoto waxaa iska ilaalinaysaa dhowr wax waxaa iska ilaalinaysaa SQL injection wax la dhaho hadda siiba haddaa isticmaasho frameworkyada sida camal Laravel haddaa isticmaasho aad bay arrintaas micnaha oo horumar ooga sameeyeen PHP 7 aad bay arrintaas horumar ooga sameysay marka hadda way yar tahay waxa oo SQL injection wax sameeyo waxaa kaloo iska ilaalinaysaa maxay dhahaan cross-site scripting attack waxay dhahaan waa kana cross-site scripting attack kaas waa kan ani aad ugu walwalay because waxyaalaha kale dhan iska ilaaliya kaasaa application-kayga uunan micnaha lahayn laakiin hadda alxamdulilah cross-site scripting attack aa la dhahaa kana waa the most frequent waa kan ugu khatarsan weeye markay noqoto special hadda markay noqoto siiba website-yada lagu dhiso javascript waxyaalahaas cross-site scripting attack waxaa weeye waa hab oo hacking loo sameeyo oo waxaad samaynaysaa waxaad attack garaynaysaa website-ka in uu filter garaynayo scriptingka so waxaad samayn kartaa for example hadda google waxay leeyihin form soo maha formkan haddaa ku qortay waxa scripting ah google database-ka ma gelinayaan so hadda kaba soo qaad meeshan formkan waxaa weeye waa part of your website wax ka mid ah website-kaada waxa website-kaada ka mid ah ama application-kaada ka mid ah weeye waxaan samayn karaa for example haddii aad leedahay database haddaa leedahay database-ka waxaa loo diri karaa script kan loo gelin karaa so hadduu qofka geliyo something like this script oo kaba soo qaad javascript waxa inta ku qoro oo script ah kabacdi saan dhaho database-ka u diro oo code-kan uu database-ka galo kadib uu markii uu database wixii soo celiyo for example PHP camal database marka wax u dirto way soo celinaysaa soo ma markii soo celiso qofku uu raan gareyn karaa code-kan so for example inta waxaan ku qorayaa
waxaa samaysaa in leeyahay for example waxaa bedeshaa loogadan Google camal bedelaan leeyahay marka database-kan u diraya marka I'll just send it to the database and then markii waxaan gelinayaa basically JavaScript waxay document dot get element by ID blah blah and then waxaa gelinaysaa wixii aad target garan lahayd and then waxaa leedahay codekaas raangaree oo ku raangaree serverka gudihiisa so qofka insha Allah hadlaya ismute garee jazakallah khair so cross-site scripting allaha waa waxa aniga hadeertan aad ugu walwalay laakiin alxamdulillah waa iska ilaaliya habka la iskaga ilaaliyo waxaa weeye horta marka hore waxaa u sheegaysaa applicationkaada in aynan inay diido wax kasta oo scripting ah so form haddaad leedahay form kasta fiiri waxaa diidaa wax kasta oo scripting ah habka loo diidaa waxaa weeye waad filter garaynaysaa I can show you applicationkayga let me see I'll show you one example aan tusaya I don't want to show everything but let me show you one example something like let's say like students amal or I'll say yeah students is fine I'll say maybe like let's see let's say kan amal behavior amal so form waxaa jiro behavior amal aan sameynayo waxaan sameynayaa inta amal for example this is one of the things aan ku daray applicationka soo dhaweeyo one of the things aan ku daray waa kana sorry markii so hadda functionkan amal wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay so softwarekeyga waxaa ku jira hab oo behavior loo manage gareeyo so behaviorka markaa ku daraysa amal waxaad sameynaysaa functionkan aan isticmaalaysaa so functionka basically wuxuu sameynayaa wuxuu leeyahay haddii oo submit la dhaho formka waxaa isticmaashaa waxaa gelisaa informationkan database-ka geli so this is so qofka insha Allah ismute garee aad amasantiin so kan wuxuu sameynaya marka informationkan database-ka gelinayaa informationka marka waa just waxa weeye waa formki inputka weeye form inputka marka for example kan camal waxa weeye waa meel oo pointska qofka behaviorkiisa pointska weeye gudaha aan usii gelin laakiin micnaha waxaan ka wataa meeshan camal waxaan geliyay baashan tag strip HTML tags so wuxuu ka bixinayaa wax kasta oo HTML tag sida script sida header 1 waxaas dhan uu ka bixinayaa tanna meel kale aan geliyay haddaad rabtid codeka bas inaan kula share gareeyo oo script HTML tags oo si uga hortagi lahayd cross-site scripting waan kula share garan karaa insha Allah messages oo private and so habab kale badanaa jira marka loo hackerayo website-yada laakiin those are the main ones SQL injection cross-site scripting inaad iska ilaalisid and also passwordadaada inaad adkaysid so make sure passwordada inayna ahayn password iyo waxaas iyo waxyaalo fudud inay ahayn make sure encryption inaad ku samaysid passwordadaada adag those are the main ones waxaa kale way jiraan laakiin kuwaas aan arkay kuleena habtaas inay ka jawaabto su'aashaada soo dhawaad dhammaantiin insha Allah qofa wuxuu weydiiyey waa maxay WordPress ma ka wadaa okay so WordPress I think WordPress inaa ka wadid WordPress waxa weeye waa habka okay so WordPress waa system way oo waxay dhahaan content management system wordpress.org waa kana actually I'm not sharing my screen so wordpress.com waa kana su'aalaha qabto insha Allah gacanta taagan kartaa no problem message-ka ii soo diri kartaa si private si public oo waxa ku soo diri kartaa Discord-ka qaybta waxa soo gelin kartaa let's go to qaybta waxa soo gelin kartaa questions-ka soo gelin kartaa ama private ay ku soo diri kartaa message ahaan insha Allah no problem and so WordPress hadda korna ka hadla dhowr jeer 10 waan ka bixiyay so haddaad tagtid YouTube-kayga and waxaa tagaysaa Duraan Cali raadinaysaa soo leedahay WordPress Somali عمل دارس I think waa helaysaa wakaasa casharadaan ka bixiyay WordPress baro full Somali tutorial waa 6 cashar oo ka hadlaya WordPress waaye so WordPress waa tool way waa application loogu talagalay in lagu dhiso website-yada aniga boqolkiiba 90 website-yada dhiso WordPress aan ku dhisaa waa very easy to use and of course waxyaalo badan ku xuntahay jiro oo in dadku ku jeclayn laakiin markay noqoto customization iyo wax inaad adiga samaystid aad bay u fududahay for example waxay ku siinaysaa code-kii
waan free waa soo download garaysan kartaa. You can just click here get WordPress dhaqsiinaysaa wuu ku download garaynayaa. So ayaga waa open source waaye, micnaha waxaa weeye waa free. Marka waa soo shubanaysaa, waxaa ku shubanaysaa serverkaada, waxaa ku shubanaysaa local serverkaada ku shubanaysaa directly, kadib halkaasaa ka raangarayn kartaa. Marka in general saas way waa tool loogu talagalay in lagu dhiso website-yada. I hope taas inay ka jawaabto su-aashaada. Alaykum salaam Cabdisaaq, soo dhowo. Dhaantii soo dhowaada maasha Allah. Okay. So let me see su'aalaha dadka waxaan fiirinayaa Discord-ka igu soo direen. Haddaad su'aal qabtidna gacan taaga insha Allah, feel free. Let's see. Qofaa wuxuu yidhi casharada Python ma noo soo wadi kartaa? Insha Allah waan soo badin doonaa insha Allah. Waa hadda busy waan yara noqday, laakiin waan soo badin doonaa haddii la yidhaahdo. Soo dhawaada dhammaantiin, soo dhawaada maasha Allah. Soo dhawaada. So qofaa wuxuu weydiiyey, wuxuu yidhi of course su'aalahan waa su'aalo private lagu soo weydiiyey oo Discord-ka. Marka qofka waxaa laga yaabaa inuu inta ku jirin, laakiin hadduu ku jiro oo dhegeysan karaa. Qofaa wuxuu yidhi haddii ka soo qaad application oo to do list aad ka soo qaadatid GitHub, sidee loo soo gashtaa localkaada? So ka soo qaad hadda waxaan sameynaynaa, let's see, aan share gareey screen-ka. So hadda waxaan sameynaynaa ka soo qaad, waxaan aadaynaa, waxaan leenahay to do. So for example waxaan isticmaalaynaa, it depends, waxay ku xiran tahay luqadda ay tahay ku xiran tahay. Haddii tahay JavaScript badanaa, let's say JavaScript haddii tahay uma baahnid wax badan. JavaScript GitHub. So simple to do list build with JavaScript, I think it is. So hadda qofka camal wuxuu sameeyey application yar oo to do list oo loogu talagalay just lagu dhisay JavaScript. So haddaan gudaha usii galno, failashaa fiirinaysaa. We look at the file-ka oo JavaScript-ga. So wuxuu sameeyey waxyaalahan u select gareeyey. He did a lot of selecting functions uu sameeyey. So it looks good. So markay noqoto JavaScript bes uma baahnay wax kale. Intaad tegi kartaa, waa download garaysan kartaa code-ko dhan, waxaad dhigi kartaa download zip aad dhigi kartaa. Haddii tahay kaba soo qaad wax u baahan in aad raangaraysid, inaad raangaraysid npm oo wax noocaase, waa hab kalaa loo sameeyaa. So tan basically waa just file caadi HTML iyo CSS leewahay. Download aad leedahay, sida u furi jirta u furaysaa, uma baahnay wax kale. Let's say waxaa weeye waa React way. Qofaa React sameeyey kaba soo qaad. Aniga xataa hadda koraan sameeyey, I think React to do list. So React waxay u baahan tahay npm ay u baahan tahay. Qofku ku sheegaya marka badanaa. Qofkan camal waxaa weeye waa basic React meesha ugu jira instruction. Waa kana marka instruction-ka. Kana raangaraynaysaa. Kan waxaa ku raangaraynaysaa marka waxaa u baahan tahay terminal u baahan tahay. Terminalka Mac haddaa haystid, terminal gooni uu leeyahay. Soo dhawaada dhammaantiin maasha Allah. Mac haddaa leedahay terminal gooni uu leeyahay. Haddaa leedahay Windows waxaa isticmaalaysaa, let's see, you can use waxaa isticmaalaysaa Git Bash isticmaalaysaa oo kan ah. So Git Bash website-kooda tegaysa, waa soo download garaysanaysaa gitbash.com/sm init or something like that. Just Google gari Git Bash and then soo download garaysa. So hadda haddaan rabno inaan soo shubano tan, waa in aan furno kan, kabacdi aan tagna meesha aan ku shubi lahayn. So xoogaha yaroo inaad taqaanid waaye oo Linux commands waxay dhahaan, waa dhowr xaba le waaye, ma aha wax badan, waa just a couple of them. So markaad soo shubanaysid, waa git clone isticmaalaysaa. Laakiin marka hore aan tagno filekii aan ka samayn lahayn. Haddii aadan rabin inaad waxaan isticmaashid, waa tegaysaa, you could go to whatever folder aad rabtid. Let's say camal waxaan tegaynaa tutorial. Inta aan rabnaa inaan ku shubno, just waxaan leenahay right click, Git Bash here aan leenahay. So intuu noogu furaya exactly. So we could just zoom, and then waxaan tegi karnaa browser-ka. Waxay noo sheegeen la sameynaynaa marka. We just copy this file-kan. Calaamadaas oo dollarka already meesha ku jirtaa. It's right there. And then just waxaan leenahay paste. So enter haddaan dhahno,
processkii bilaabaya wuu copy gareynaya macnaa clone waxa weeye isoo copy garee haddaan tagno folderkii baasha magaceedaa fiirinaysaa you just look at the name react to do app so react to do app where's react to do app so r because I react to do app waa kana file noo soo copy garee the second thing aan sameynayno waxa weeye inta wuxuu leeyahay waxaa gudaha usii gashaa ma dhahay laakiin gudaha inaa usii gashid waa folderka so waxaa leedahay cd react to do app intaa leedahay waa ku jirtaa kabacdi waxaa raan garaynaysaa npm install macnaheedu waxaa weeye npm install waxaa laga wadaa hadda haddii aan furno baashaan waxay leedahay waxaa la dhaho package.json waxa la dhihi leedahay package.json waxaa weeye waa file oo json ah oo waa kana filekan jsonka ah oo ay ku jiraan waxyaalihii aan u baahnayd so filekan macnaha wuxuu leeyahay applicationkan waxay u baahan tahay waxyaalahan magaceeda waa tana versionkeeda waa kana this and that dependencies waxa weeye waxyaalahay ku tiirsan tahay waaye dependencies waxa weeye waa haddaa wax ku tiirsan tahay amal geedkaa ku tiirsan tahay so waxay ku tiirsan tahay bootstrap u baahan tahay waxaa u baahan tahay kan waxaa u baahan tahay kan waxaa u baahan tahay kan so waxaan dhan haddaa artiin hal mar soo download garaysid waxaa raan garaynaysaa base npm install maxaa yeele waxyaalahan npm bay ku jiraan npm waxa weeye waa node package manager waxa weeye waa meel market ah weeye oo ay ku jiraan so gudahana usii galo mar waxaan cashar oo reactan soo wada inaan sameeyo insha allah laakiin saana loo soo download garaysa so npm install aa leedahay and then wuu furayaa wuu install garaynayaa markuu dhammaystiro waxaa leedahay npm start copy aa leedahay hadda inta ma sameynayo wax badan because computerkayga waa slow but let's just cancel and then same thing aa sameynaysa npm start marka I hope taas inay ka jawaabto su-aashaada qofkii su-aal qaba insha allah gacantaaga ama si private usoo diri daartid insha allah ama si public ah discord kaa soo gelin kartaa ama waxaa igu soo diri kartaa zoomka insha allah qofaa message kale iisoo diray qofka wuxuu leeyahay waxaan kaa codsanaynaa inaan noo bilaawdo java programming haddaa awoodo maadaama baahi badan loo qabo waad mahadsan tahay waa runta so java badana iskuulada lagu baraa that's the main thing waxyaalaha ugu weyn oo dadka u isticmaalaan waxaa weeye because casharaha ku taagan ardayda oo iskuulo badanaa lagu dhigaa laakiin badanaa ma arkaysid developmentiga especially web developmentiga kuma jirto java laakiin ios developmentiga oo haddaad app oo ios haddaa rabti inaad samaysid of course java lagu sameeyaa so that's why focuska badanaa aniga u saarin maxaa yeelay barnaamijka waxaan sameeya badanaa waa web developmentiga laakiin waa runta dad badanaa aad ugu baahan java waanan insha allah ka fikri doono mustaqbalka markaan dhameeyo casharadan kale in aan soo geliyo insha allah soo dhawaada dhammaantiin barnaamijkan oo socdo weli su-aalihii iyo jawaabaha su-aalo badanaa private igu soo diraa marka inaan kala shaandheeyo waaye anigoo live ku jiro okay soo dhawaada insha allah okay let me see soo dhawaada dhammaantiin su-aalaha la iisoo dira kulligood waxaa very technical waaye waxyaale micnaa u baahan oo in meel lala fiiriyo oo codekooda la figure out gareeyo qofa wuxuu yidhi bluehost se iskaga cancel gareeya okay so bluehost iskaga cancel gareeya so hosting haddaa leedahay bluehost waa company hosting haddaa leedahay waxaa weeye waa haddaa rabti inaad canceshid waa canceli kartaa laakiin waxaadaa ka baxsanaysaa waxaa ka bixinaysaa paymentkii kaarka kabacdi sanad kabacdi iska expire garoobayo uma baahna inaad wax samaysa adi just paymentgaada ama lacagta meeshuu kala bixi laale ka bixi bas kabacdi uu iska cancel gareynayan soo dhawaada dhammaantiin maasha allah okay let's see so su'aalaha very detailed wise so I'm not gonna go there kuwan waxaan fiirinayaa Facebook aan fiirinayaa soo dhawaad maasha allah haddii aad wax tala qabtay xataa soo gelin kartaa wax haddaad rabto inaan nala share garaysid insha allah soo galo assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ustaad calaykum soo dhawo axmed
may maqashaan ها والله مقلا usii maqashaan ها سودا وعدك والله مقلا لكن وفوقه halo ها سودا والله سودا اوكي بس ان شاء الله markii aad diyaar tahay soo gal codkaada waa la maqlaa dad ha hadlaya laakiin adiga laguma maqlo qof kale su-aashiis ka jawaabaya oo dhahay micnaha su-aal maa laakiin waa talo weeye ma noogu soo dirta micnaha casharada projectyaal markii noqoto project waxaan jeclaa inaan la sheergaray dadka wax micnaha quality leh oo fiican oo ay u isticmaali karaan waxyaalo badan marka hadda 2 projectyaan wadaa maalin waxaan maqlay nin dhahayo badanaa waxaa samaynaysa laba dhaho waxaasan samaynayaa waa la sameeyaa kabacdina dadka markaasaa la dhahaa waan sameeyey marka laakiin 2 projectyaan wadaa insha allah ma rabi inaan sii faalfaaliyo maxaa yeelay wax kasta iska dhici karo waxaa kale oo jiro dad oo markii aad dhahdid waxaasan soo gelinaya waan arkay youtube-ka camal wixii ayaga isku daya inay soo geliyaan oo raba inay soo geliyaan micnaheedu ani ma diidani maxaa yeele waxaan soo geliyo waa free laakiin wax kastoo waxa fiican wax quality leh inaad soo gelisid oo dadkay ka faa'iidaysan karaan oo waqti la geliyey marka waxaana waqtiga galo dadka oo sameeyo tutorialska yaqaano waa inaad qortid horta codekii aad samayn lahayd horta applicationka aad samayn lahayd waa inaad samaysid marka hore ma jiro waxa oo hal mar aad fadhiisanaysid oo adigoon waxba balaan garaysan aad iska samayn karto ma jiro adduunka codinga markay noqoto waa inaad special markaad samaynaysid tutorial ama cashar aad samaynaysid waa inaad marka hore horta casharkaa ka fikirtid waa inaad research samaysid ood ogaatid hababka ugu fiican oo loo sameeyo maxaa yeele dad badanaa baraysaa waa habka ugu fiican inaad soo heshid waaye habka adiga aad taqaanid bas ma ahan laakiin habka ugu fiican kadibna waa inaad qortid waaye badanaa ani waxaan sameeya codeka buugan ku qoraa caadi buugan ku qoraa codeka applicationkaad dhisaa marka hore applicationkaad istaajiyaa oo sidii final sidii ahaan lahayd kabacdi codekii dhan waxaan qoraa from beginning to end buugan ku qoraa kabacdi buugiyaan meel saartaa markaas kabacdi aan tutorial ka bilaabaa marka reference ahaan buug u isticmaalaa structure-kii habkan u dhisi lahaa applicationka already isii habaysan tahay so si aanan micnaha ano application ku jira aanan debugging waxay u gelin sheeko dheer waa garanaysaa markaa wax dhisaysid waa inaad debugging gashid waa inaad waxba ka istaagayo waa inaad dib u laabatid waa inaad google gashid ood gelisid error ka gelisid all this stuff so markaa samaynaysa tutorial planning fiican haddaad samaysid si dhaqsaa u dhamayn kartaa laakiin planninga waqti dheer kaa qaadanaya hadda buugga xataa ag yaallaa waxaan ku qoray hal application waan qoray tukalaan hadda inaan ku qoro rabaa kabacdiyaan insha allah recordingka bilaaba hadii la yidhahdo so insha allah adiga isbuucyadan soo socda way soo geli doonta hadii la yidhahdo maxamed go ahead gacanta ku taagan asalaamu calaykum maqal ma jira ha si fiican maxalin duraan aad baan kugu salaamay saaxiib aad iyo aad baan kugu salaamayaa niyahow waa dadaalaysaa ilaahay u garab galo waxaan rabay inaan ku weydiiyo maxay ahayday luqadda aad focuska yani main languageka muxuu yahay javascript ba mise waa php I know inaad web development iyo aad xaggaas ku jirtid okay su'aalaad ma dhamaysanaysaa mise waan kaaga jawaabaa hadda su-aasha gaaban baan rabay inaan ku weydiiyo waa focuskayga waxaa weeye waa front endiga weeye inta badan waxaan xooga saaraa javascript backend ahaan waxaan xooga saaraa 2 luqadood python iyo php labadaasaan xooga saaraa html iyo css-na waa un qayb ka mid ah javascript front endiga ka wadaa php marka tutorial ma sameysaniyo php weli ma sameyninayo php tutorial dib ayaan u yara dhigay laakiin insha allah hal maraan rabaa inaan hoobalay ku qaado
insha Allah dila صح marka PHP is it much easier than JavaScript or PHP may kama fudud JavaScript laakiin waa luqadda internet ugu badan markay noqoto website-da so dad badan aad u isticmaalay waa luqad micnaha aan u baahnayn shaqo badan iyo setup badan uma baahno ayad ahaan luqad ahaan uma baahno setup badan luqadahan kale sida Python camal iyo luqadaha kale waxay u baahan inaad wax gooni ah soo install garaysato waa inaad environment waxay dhahaan aad samaysid waxyaalo badan samaysid PHP waxa uga roon tahay ayada waxa weeye as long as aad haysatid server fiican oo Apache server hadaa haysatid horaa ka qori kartaa luqadda صح that's good laakiin kama fududo Python camal kama fududo waa luqad iska dhexdhexaad ah laakiin way ka kooban tahay Soomaha JavaScript oo kale like little bit shorter about only backend I think ha so ayada shaqadeeda bas waxa weeye backend waa database-ka iyo front end isku la xiriirin lahaa leh waa so basically waxay ka soo qaadaysaa database information ka soo qaadaysaa waxay tusaysaa browser-ka bas shaqadeeda intaas waa back and forth commands aad samaynaysaa iyo functions iyo waxyaalo aad dhehaysid qofkan haddii uu kaba soo qaad uu wax uu delete gareeyo command kan qaad waxa uu geysaa database-ka tirtir waxaas and soo celi request-ga soo celi waxaas bas shaqadaas bas ay qabataa ayada marka focuskayga waa kuwaas wey waa Python PHP JavaScript iyo framework-yada JavaScript-ga iyo Django oo ah framework oo Python badanaa xoog ani waxaan saaray framework-yada luqadda keligeed oo pure ee xoog ma saaro waan bartaa wixii oo micnaha waa u baahanta luqadda oo keligeed inaad barato laakiin luqadaha intooda badan framework-ay leeyihiin framework-na waxa weeye wax oo kusii dhisan waaye u baahnayn inaad adiga aad hoos kasoo dhisto wixii صح react oo kale aad isticmaashaa Soomaha badan react-ga badan isticmaalaa react-ga view no xogaa aan ka taabtay laakiin angular ma ogelin angular صح PHP-na wax framework ma isticmaashaa PHP waxaan isticmaalaa so application aniga leeyahay waxay ku dhisan tahay framework hore oo aan ka bedelin waqti badan ay qaadanaysaa haddaa bedeshid waxaa la dhahaa code igniter la lahaa laakiin Laravel aniga xoog ka saara badanaa hadda waxyaalahan dhisaayo oo hadda haddii aan ku dhisaayo wax PHP Laravel aan isticmaalaa laakiin applicationka aniga leeyahay waxay ku dhisan tahay waxa la code igniter waa framework yar oo fudud oo simple ah oo hadda taa micnaha aan caan ahayn laakiin waa second wuxuu ku xigaa adiga Laravel ku xigaa marka noqoto framework صح waa ka intee joogtaa adi maxaana xoog ka saartaa anigu niya waxaan joogaa New Zealand baan joogaa waxaan hadda ka hor mar baan wada hadallaan maraynayaa laakiin JavaScript baan iyo dee waxa adigu maaragtay HTML iyo CSS baan ku bilaabay then JavaScript baan u gudbay صح marka hadda backend-iga iyo waxa maaragtay JavaScript Express iyo waxaasan maaragtay iyo React iyo waxaasan ku jiray صح waxoogaa PHP-na waxoogaa yara fiirfiiriyay laakiin waqti badan kuma bixin PHP صح marka JavaScript waxoogaa badan waqti baan ku bixiyay ma garat ما شاء الله that's good والله that's good waxaan dhihi lahaa haddii aad JavaScript waqti badan ku bixisay haddii aad PHP ka heshay PHP aad laakiin haddii aad JavaScript si fiican u taqaanid oo kaba soo qaad aad ku samayn kartid waxyaalaha for loopkii functionskii waxyaalahaas oo dhan aad samayn kartid bal fiiri at least website-kaad fiiri Node.js oo ah JavaScript ah waana backend wey Node.js waa haddaan ku jira Node.js iyo waxaas so meeshii aad PHP isticmaal leed Node.js waa isticmaali kartaa صح marka masha Allah waa shaqo fiican oo daa waana insha Allah waxaan waqti qaataan laakiin maalin kasta aad wax samaysid ama isbuuc kasta aad wax aad samaysid ama aad daawatid wax ama wax qortid aakhir marka dambe isku imaanaysaa insha Allah okay su'aal kale qabto ma jiro ma qof kale ku wareeji brad hay qof kale waxa kugu xiga qof Duraan la yiraahdo say magac
Go ahead. السلام عليكم. Ahmed, okay, عليكم السلام. مالي مقلع. هقول ما brother. Go ahead. السلام عليكم. عليكم السلام. متكين هالسؤال إن شاء الله. أحمد أنا دران. أنا هوريا فيلايا. Okay. دران أودين مركور. Go ahead. walaal waxaan ku weydiinayaa aniga waxaan ahay luqadda Java aad u bartay marka waxaan rabaa inaan isticmaalo Java Spring oo backend u isticmaalo صح markaan xoogaa aan wax barbaaro waxa arkay in wax la yiraahdo Java annotation barto bal Java annotation wax ma ka taqaantaay oo ma maqashay صح su'aasha labaad aan ku weydiinaa waxay tahay database waxa jirta SQL oo non SQL oo la yiraahdo MongoDB maxaa loo isticmaali karaa government system iyo waxaas waxaa loo isticmaalaa in kambaniyada yararka oo sida social media iyo waxyaalahan yararka appka ma loo isticmaalo sida government ma loo isticmaali karaa okay oo Mongo macnaha waxyaalaha oo artificial intelligence ma loo isticmaali karaa exactly oo fingerprinterka iyo waxaas u baahdo صح okay Oh, those good questions. Okay. horta markii noqoto dhinaca Java run ahaantii aniga xoog ma saar Java waa qorwaan ka garanayaa Java annotation waa maqlay masha Allah waa hab qatar oo aan macnaha loo sameeyo programmingka sidii halkan leeyihiin website-kooda waxay leeyihiin annotation is a form of syntactic metadata that can be added to Java source code marka waa hab macnaha dulsaarid la dulsaaraa Javadii hore si dul saarayo oo habka loo fududeena dadka developmentiga laakiin gudaha anigu uma gelin just dhinaca news ahaan ayaan ka aqriyay un base marka wax badan kaaga ma sheegi kara taas laakiin MongoDB markay noqoto waan ku sheegi karaa wax badan so MongoDB yes waxaa loo isticmaali karaa governmentiga waxaa isticmaala kambaniyada adduunka ugu waaweyn Facebook way isticmaalaan Google isticmaalo kambaniyada adduunka ugu waaweyn oo dhan way isticmaalaan MongoDB waa NoSQL way waxay dhahaan document based database waaye waa sida wuxuu caansan yahay MySQL I think waa number 2 waaye markay noqoto database sida caanka marka waxaan dhihi lahaa MongoDB haddaad si fiican u barato wax badan aad u isticmaali kartaa relational database maahan oo haddii for example aad samaynaysid wax la xiriiro kama soo qaad fingerprint markaad samaynaysa haddii aad fingerprintigaas wixii qofkii haddaad inaad la xiriirisa magaciisa oo la sii xiriirisa wax kale oo la sii xiriirisa kan kale addresskiisa wixiisii relational database markaas fudud oo special data application aad u weynin hadday tahay relational database-ka sida MySQL fudud oo lagu develop garan karaa laakiin haddii aad ka walwalayn arrintaas oo rabtid in aad basically just aad fingerprint maalin kasta aad qaadaysaan oo dad badan laga qaadayo oo process fara badan uu jiro then MongoDB caadi waa so labadoodaba isku waxay qaban karaan laakiin markay noqoto relational wax haddii ay waxyaalo badan isku xiran yihiin oo kaba soo qaad qofaad ka qaaday information let's say qofkaas informationkiisa waxaa rabtaa in uu daba socdo meel kasto then MySQL xoogaha taasi arrimahaas ku fiican tahay waxay ku fiican tahay in qofkan wixiisii ID loo sameynayo primary key ama primary ID wixiisa dhan waxaa lagu xiraa primary ID-gaas meel kasta uu galo informationkaas uu daba soconaya laakiin balka MongoDB-na waxa weeye waa document based waa sida camal JSON camal uu dhigan yahay is JSON formatted marka waa samayn kartaa saas oo waa samayn kartaa primary key and then relational waa dhisi kartaa xataa database maxaa la jiray MongoDB gudihiisa laakiin fudayd ahaan markii la dhaho waxaa ka fudud already loo sii dhisay MySQL marka I will say MongoDB 100% wuu handle garan karaa wixii government wax kasta oo kusoo tuurto wuu handle garan karaa laakiin Java annotation wax badan kaagama sheegi karo I will say research ka samee haddaad rabto links oo kusoo diri karaa tutorials badan ay jiro internet ku jiro oo ka hadlayo marka definitely intaas kaaga sheegi lahaa macallin waxaa ku ustaad xarunaa ku weydiiyo Node.js waxaa maqlan ma support garayso macnaha waxyaalaha hardware-ka ma fahmin maxaa lagala jeedaa waxaa lagala jeedaa aniga saan ka fahmay
waxay leedahay waxa la yiraahdo aniga xataa 100% ma fahmin taas laakiin habkan ka fahmay waxa weeye multi threading waxa la dhaho yaa jiro for example badanaa Node.js waxay ku fiican tahay informationka database-ka hadduu yahay asynchronous camal oo waxa isdaba soconaya hadduu yahay oo for example aniga markaan geliyo informationka database-ka haddana aan kasoo jiito waxay samaynaysaa waxa la dhaho promise iyo async await waxa la dhaha jiro oo basically waxay samaynaysaa informationka isdaba istaajinaysaa oo let's say waxaan sameeyey one action aan sameeyey actionkaas waxay samaynaysaa waxay gelinaysaa line ay gelinayaan actionkaas so actionkaan sameeyey ku kalaan sameeyey waxaana line ay gelayaan and then async await waxa la dhaha isticmaalaysaa oo basically waxa weeye waxaan markay dhacaan kan sug haddana kan sug laakiin markay noqoto hardware isu sug wax la dhaho ma jiro inta badan wixii waxay u dhacayaan si oo maxaa la dhihi jiray milliseconds u dhacayaan waxa weeye waa isdaba socdaan wixii so haddaadan rabin waxyaala inay istaagaan ama lag noqdaan ama ay micnaha ay si fiican u shaqeeyaan badanaa Node.js kuma fiicna arrimahaas waxay ku fiican tahay base wax markii la diro in ay isdaba istaajiso wixii oo let's say camal systemkaada shutdown noqday badanaa waxaa isticmaalo kambaniyada oo e-commerce-ga camal wixii shutdown ay noqdeen waxaa sameynaysay kaba soo qaad shopping aa sameynaysay shoppingkii wixii yaa xirmay Node.js waxay samaynaysaa wixii dhan waxay gelinaysaa thread waxay gelinaysaa line ay gelinaysaa wixii xataa hadduu systemka dhan isxiro waxaad dhihi kartaa ilaali wixii hadhood marka systemka dib kasoo laabto wixii dibi ka bilaabanayaan haddana meeshii kasii bilaabanayaan ay joogeen laakiin hardware markay noqoto hardwareka waxa u baahan yahay wixii inay dhaqso fast ahaadaan that's why badanaa luuqadaha sida si camal lagu sameeya hardwarada maxaa yeelay malahan waxaan iyo buuqaan iyo istaag iyo waxa malaha wixii dhan waxay u dhacayaan waa lightning speed dhahan waa basically it has to happen koronto waa waxaan moogtaa marka korontada marka saan isku taabato waxayna hore ka dhacaan waayo oo si dhaqso u shaqeeyaan marka that's why badanaa ay dadka ugu recommend gareynin Node.js inaynan micnaha loo isticmaalin hardware oo loo isticmaalo serverka iyo waxyaalaha la xiriiro maxaa yeelay serverku wuu sugi karaa wixii haddii xataa istaagaan wixii halaabaan waxaa la gelin karaa hold la gelin karaa wixii oo waa la ilaalin karaa marka that's mostly waxaan ka fahmay Node.js sababtaan loo isticmaalin hardware macallin waxaa rabo inaan kala ku weydiiyo macnaha jaamacadaha waxaan ugu dhigaa waxyaala la yiraahdo software introduction iyo software requirement iyo system analysis iyo quality assurance waxyaalahaas waa wax muhiima miya oo dadka rabaan inay mustaqbalka heer ka gaaraan oo muhiim u tahay miya mase waa wax iska fufud software introduction software requirement waxyaalahaas markii aad baranaysid waxay kula egyihiin wax aan muhiim ahayn markaa baranaysid at the beginning oodan waxyaalo kale aadan aqoonin waxay kula egyihiin waxa micno darro ahoo like why maxaan waqtiga oo iskaga luminaynaa waxaan ilmaha soo ma arkin markii ay ku jiraan elementaryga iskuulada hoose xisaabaadka isku dar ku dhufashada xataa ma let's say algebra camal iyo geometry iyo waxaas markii la baraayo oo high school camal ay ku jiraan waxaa leedahay waxaan maxaan baranaynaa waxaan weligeen ma arkin qof isticmaalayo laakiin run ahaantii mararay kugu soo istaagayaan haddii aadan gelin kaba soo qaata haddaadan ahayn accountant haddaadan ahayn micnaha xisaab badan ma samaynaysid let's say waxaa tahay qof oo ka shaqeeyo baabuurta waxaas xisaab badan ma samaynaysid unless baabuurka adiga aad dhisaysid aad develop garaynaysid engineer garaynaysid marka laakiin waxyaalahan aad baranaysid oo maxaa la jiray quality insurance-ga software theory-ga waxyaalahaas aad baranaysid jaamacadda ku baranaysid 90% inaad isticmaal laga yaabo 99% inaad isticmaal laakiin maalin waxay kugu imaanaysaa inaad isticmaasho u baahan tahay maalintaas inaad taqaana u baahan tahay also conceptyaasha fikradaha way isku dul dhismaan so let's say camal waxaa lagu baray meeshii uu ka imaaday softwareska meeshii ka imaadeen waxaa baratay software theory waxaa baratay dadkii dhisay originally meeshii ka imaadeen luuqadan c camal yaa dhisay ninkii ka dambeeyey taariikhdiisi wixii yaa baratay aqal hadhoodii wixii isku dul dhismayaan oo ninkii waa taqaanaa dhisay sababta u dhisay and then waxaa garanaysaa basicga programmingka sida camal conceptska sida object oriented waxaa garanaysaa sida u kala sareeyaan waxaan luuqadaha wixii isdul dhismayaan marka laakiin haddii aad kor u boodid oo meesha luuqadahan sida camal luuqadaha oo la dhaho high level languages oo sida java iyo javascript haddaad tagtid waxyaala conceptka hoosena aadan xoogaha wax ka fahansaneyn waxay noqonaysaa guri oo aan hoos fiican looga dhisnayn camal aa noqonaysaa
marka waxaa fiican inaad waqti ku bixiso waxaa laga yaabaa 80% inayna waxba micno ku sameynaya ahayn laakiin aakhir markii aad kor tagto oo wax develop gareynaysid way ku anfacayaan software marka la dhisaayana hab loo dhisaa jiro oo micnaha haddaad software code haddaa qaad iskama dhisaysid software waxaa baahanta marka hore architecture inaad samaysid ood ka fikirta habka loo dhisi lahaa waxaa jiro waxa la dhaho codeka micnaha inaad organize garaysid waxaasna jaamacadaha ku baran kartaa waxay ku xiran jaamacadda laakiin waxaan ilaa boqolkiiba 80 most of the staff waxaa weeye ma isticmaalaysid laakiin waa u baahnaan doontaa mustaqbalka ku caawinayaan eventually markii aad noqoto software developer khatare wixii way ku caawinayaan way isku dul dhismayaan marka I would say it's good way fiican most of it asmaan waa ku dhibay su'aasha ugu dambayso anaha maxaa loo isticmaalaa Next.js muxuu ku saabsan yahay maxaa loo isticmaalaa ma fahmin taas Next.js waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso website-yada so let me show you website-kan ku dhisay maaldootana waan share gareeyay let's see so Next.js waxaan ku dhisay website-kan basically Next.js waxaa weeye waa React oo lagu dhiso website way so haddii aad maqashay React oo aad maqashay React to JavaScript ku dhisan tahay waxay loogu talagalay in lagu dhiso website-yada marka React-ga laftirkeeda oo kaligeed way adagtahay in aad basically website si dhaqso ugu dhisid maxaa yeelay React waxaa weeye waa sida camal kaba soo qaad waa JavaScript-ga oo kale leeyahay so waa adigoo lagu dhahay JavaScript kaligeed ku dhis website marka way adkaanaysaa markaas inaad wixii isku kiisii dubridan inaad hab website ugu dhisto React looguma talgelin right away kaligeed bas in website lagu dhiso waa wixii waxaa lagu siinaa componentskii oo basic waxaa lagu leeyahay adiga habayso waxaadi marka next waxaa sameeyey kula dhaho Vercel Next.js kuwa waxaa sameeyey Vercel la dhaho waa framework lagu dhiso Next.js gives you the best development experience with all features so basically waxay sameysaa waa soo jiidanaysaa isla markii waxay ku siinaysaa waxyaalaha u baahan tahay si aad website u dhistid website-yada waxyaalo gooniya u baahan tahay jira for example waxaa u baahan tahay SEO-ga inuu okay yahay SEO waxaa weeye website-kaada in Google markii la geliyo uu soo bixi karo so hadda camal kan haddaan geliyo Google Alif Cloud soo ma jeedid page-kii wixii dhan way soo baxayaan waa habaysan yihiin haddii aad ku dhistid kaba soo qaad React bas haddaa ku dhistid website-kaada so React waa JavaScript waa JavaScript-na say u shaqeyso waa garanaysaa waxay target garaysaa DOM-ka so waxay target garanaysaa elementigan camal so hadda element halkaa daarto inaad ku dirtid waxaad sameynaysaa just intaad tegaysaa waad ku daraysaa element adigoo JavaScript isticmaalayo marka waxaa leedahay camal target garee meeshaan waxaa ku dartaa element ku dar aad leedahay so JavaScript halkaas u shaqeysaa waxay generate garaynaysaa element cusub Google marka ma garanayo waxaas so haddii aad JavaScript aad ku dhistid wax aad ku samaysid elementska waa in la generate gareeyo waaye oo ay dhismaan oo JavaScript dhisto Google marka waa inuu lahaado asaga saa u garanaysaa waxaa weeye Google wuxuu fiirinaya website-ka wax ku jiro website-keeda hadduu empty yahay oo JavaScript u baahan tahay wax inay generate garayso micnaha Google ma garanayo wixii si loo soo jiidi lahaa oo haddii imaadaan robotska Google ay fiiriyaan website-kaada waxba kuma jiraan website-kaada laakiin marka website-kaada load garayso marka bacdi iyo JavaScript waxay sameynaysaa markaas generation wixii generate garaynaysaa oo waxay ku dhisaysaa elementski dhisaysaa wixii oo dhan si arrintaas looga hortago waxaa la sameeyey Next.js waxay sameynaysaa marka wixii sii generate garaynaysaa already way sii render garaynaysaa wixii so elementskan waxaa dhisaysaa so waxaan ku dhisay so haddaa fiiriso I can show you is qofka quraanka aqrinaya fadlan is mute kare qof quraan aqrinaya and so JavaScript caadi waa gudaha usii galo mar rabo waa subject weyn waaye laakiin waxaan ku tusayaa bas sida oo pageska u dhisan yihiin so hadda camal website-ka hadda aan fiirinayno waa kana code-kiisii oo this is Next.js ka lagu sheegaya waa tana so habka adiga u samaysan adiga ku jirtaa laakiin kan waxa weeye waa hab oo aan gooni aan u sameeyay so pages kana tagaysaa so pages saa u jeedid hadda about us about-ka which is this one and wuxuu ku dhisan yahay waa JS so about.js waa JavaScript adiga weligaa ma aragtay waxa oo browserka lagu run gareynayo .js ma jiro so waa inaad run garaysa either
.html .php inaad run garaysid laakiin .js wax run garaynaya ma jiro .js waa javascript ma aha wax browser ku run garaynaya waa wax micnaha u baahan in DOM-ka lagu run gareeyo oo lagula xiro maxaa la dhihi jiray lagu xiro html lagu xiro so hadda camalkan components waa waxaan components kala duwan waay componentskan marka waxay ku jiraan meeshaan ku jiraan waa kana componentskan let's see one of the components let's see nav bar kan fiirinaynaa so nav bar waa kana marka waa component caadi oo javascript ah way oo maxaa la jiray react ah nav bar marka basically gudihiisa waxaa ku jiro codekii aad run garayn lahayd oo nav bar waa kana about pricing-ka waa kana pricing kan way so wixii dhan waa javascript waa waxaan so hadda saa ujeedid waxaan dhan waxay ku guda jiraan function javascript ah oo return garaynayo soo celinaya waa kana function class-kan way function aan dhihin waa class way class-kan wuxuu soo celinayaa wuxuu render garaynayaa html-kan render garaynaya laakiin waa ogtaa Google ma ogolo micnaha ma fiirinayaan ayaga waxa ay javascript render garaynayso ma fiirinayaan waxay fiirinayaan waxa page ku yaalo bas fiirinayaan rendering ma raadinayaan ayaga so sidaa darteed waxay sameeyeen Next.js waxa la yiraahdo let's see waxay sameeyeen waxa la default SEO waa kana default SEO basically waxa weeye website-ka horta marka hore waxa lagu bilaabayo sorry maqashaan so wax marka hore lagu bilaabayo website-ka wixiisii hore waa kana so title-ka website-ka description-ka wixii so waxaan marka hore la generate garaynaya before website ku bilaabanin waxaana la generate garaynaya kadib waxaa la generate garaynaya content-kii information-kii content-gana hab kala loo generate gudaha mar rabina u sii galo laakiin file-kan hadda idin tusaayay oo navigation-ka camal waa la qaadaya isagoo javascript ah fadlan qofka oo buuqa sameynaya ismute gara waxaad samaynaysaa waxaa generate garaynayo html laga dhigayaa javascript-gii so javascript-ga la bedelayaa html laga dhigayaa so Next.js saasay ku fiican tahay waxay u bedelaysaa html SEO na waad samayn kartaa marka waxyaalaha ugu waaweyn waa taas waaye laakiin waxyaalo kaloo badan way ku fiican tahay macalin halka su'aal ugu dambayso waaye waxyaalaha qaar waxa arkaa oo serverka loo isticmaalo sida Linux server Windows server maqlaa sidoo kale waxa maqlaa wax la yiraahdo Heroku waxa maqlaa baa kale ya Digital Ocean waxa kalqona wax la yiraahdo SW mid waxa maqlaa Google Cloud waxyaalahaas maxay kala yihiin taas u fiican hadii la isticmaalayo oo muxuu kala duwan yahay cPanel-ka caadiyan isticmaalo waxyaalahaas okay su'aashaada waan soo gaabinayaa insha Allah next time si fiican u weydiin kartaa laakiin hadda si general concept-an ka siinayaa markay noqoto serverska markay noqoto oo MongoDB dhihine markay noqoto Digital Ocean Google Cloud AWS markay noqoto ku ugu waaweyn waaye waxyaalahay ugu duwan yihiin let's say hosting-kaada company-ga hosting-ka cPanel control panel-kaada waxay ugu duwan yihiin ayaga waxay ku siinayaan customization waxyaala aad samaysan karto for example hadda computer-kana ku jira soo maaha so I have my window computer file-sheeda igu jiro I have like folders-kayga I have like this documents-ka ay furan saa ujeedid waxa igu jiro pictures-ka wixii oo dhan igu jiro I have everything aan u baahanahay igu jiro meesha soo maaha Google camal markay aad ka soo qaadatid server markay ku siiyaan basically waxay ku siinaa computer saan camal ah laakiin Linux ah oo aanan micnaha aanan ahayn interface-kan aan lahayn kan hadda waxaan waxa weeye waa GUI la dhahaa waa interface-ka un waaye Microsoft camal ah sameysay interface-ka laakiin waxay ku siinayaan computer saan camal ah oonan interface lahayn laakiin aad ku run garayn kartid Linux aad ku run garayn kartid so command-ka Linux-ka isticmaalaysaa waa ku run garaynaysaa marka difference-ga waxa weeye waxaa lagu siinaa computer dhanaa lagu siinayaa ood adiga kusoo shubinaysa let's say camal waxaa rabtaa inaad run garaysid PHP camal Google Cloud markay ku siiyaan AWS waa inaad soo shubitid horta marka hore Apache-gaadii waa inaad soo shubitid MySQL waa inaad soo shubitid waxaas oo dhan waa soo download garaysanaysaa just like hadda camal waxaa leedahay inta camal waxaa kusoo download garaysanaysaa WAMP ma aha mase Zamp-kan camal kan camal waxa weeye waa software loogu talagalay in lagu run gareeyo PHP camal oo wuxuu ku siinaa Apache MongoDB PHP all that stuff ku siinayaa computer-ka hal mar kusoo shubanaysaa computer-ka gudihiisa waxa ku run garaynaysaa maxaa la jiray server-kaadii waxaadii so company-da waaweyn waxay ku siinayaan marka kanay ku siinayaan oo micnaha aad ku shubin kartaa adiga
just waxaa isticmaalaysaa Linux commands ka isticmaalaysaa waxaa leedahay igu shub so waa kana actually Linux commands ka waa kana you just click this one and it actually run like Linux commands haddaad haystid waad ku run garaynaysaa it's easy to use marka saas kula duwan yihiin laakiin markii ay haystid cPanel ama control panel waa very limited waaye waxaa lagu siiyey bas wax yar oo basically waxaa lagu siiyey Xamkan iyo couple other things aa lagu siiyey and that's the only thing oo aad macnaha haystid marka saas kula duwan yihiin marka haddaad soo gaabiyo su-aashaada macna waa maqsadtahay khayr allah kaasi waa fahmo wax dhan Mohammed go ahead Mohammed gacana ku taagan amlena lama sii dada wax soo qoran akhriyo عليك السلام codkaadu yar gogo'a ku soo celi soo dhaw dhamaantiin lami aqriya qof waxay soo diray ustaad qof dhamaystay dhammaan qofkan wuxuu leeyahay ustaad qof dhamaystay dhammaan wixii looga baahnaa web designer oo leh khibrad aan badnayn oo jooga East Africa sida uga fudud oo shaqo ka heli doono intiis kale so qofkan wuxuu leeyahay qofka hadda taqaan macnaha wixii codingkii iyo ay ku kala baxsan yihiin khibrad badan aadan lahayn laakiin shaqo raadinaysa see ku fudud haddaad joogtid East Africa camal horta ani East Africa ma joogin laakiin waxaan dhihi lahaa waxyaalaha ugu fiican oo lagu bilaabo waxaa weeye inaad dad wax u dhistid so waxaan dhihi lahaa haddii aad joogtid meel oo magaalo ay dadka ganacsi leeyihiin ganacsatada u tagaysaa waxaa leedahay waxaad soo samaysanaysaa camal wax macnaha waraaqada camal or something like that waxaad isku xayisiinaysid waxaa leedahay waxaan dhisaa website-yada waan idiin dhisaa website-kiina so just waxaa ku bilaabaysaa marka dad kugu dhadhow aa ku bilaabaysaa dadkaa taqaanida ku bilaabaysaa xataa waxaa u dhisi kartaa haddaa rabti si free waxaa u dhisi kartaa dadka aad saaxiibada tihiin ama ciddiina ganacsi haddaa leedihiin qof hadduu ganacsi leeyahay waxaa dhihi kartaa website-an ku dhiso waa u kala habayn kartaa waxaa leedahay waxaa la baxdaa hostingkii waxaas la bax waxyaala noocaase adigaa xataa bilaabi kartid oo company hosting aa bilaabi kartaa let's say camal magaalaa joogtaa kabsoo qaad muqdisho camal dad badan companiyo badan oo hosting ka jiro laakiin magaalo waxaa joogtaa kabsoo qaad aanan dad technology badan aana jirin adigaa waxaa u noqon kartaa hostingkii waxaa dhihi kartaa let's say camal waxaa soo deysanaysaa account oo hosting insha allah arrintaasna dib aan uga hadli doonaa mar kale waxaa la dhahaa reseller aa la dhahaa adiga waxaa noqonaysaa hostingkii so kabsoo qaad qof haddii u samaynayso website waxaa leedahay anaan ku host gareynayo lacagtaana la bixaysaa bishii ama sanadkii intaana kuugu habeenayaa xataa uma baahno qofkaas inuu kaar oo credit card ama debit card waxaas inuu soo deysto uma baahno ama xataa inuu macnaha lacag noocaas just lacagta adigu kuu soo dirayaa adaa process garaynaysa wixii marka waa ganacsi fiican weeye markay noqoto freelancing dhinacaas laakiin shaqo ahaan markay noqoto wallaahi ma garan karo maxaa yeelay waxay ku xiranta meesha joogtid waxaan dhihi lahaa waxaa fiirisaa haddii aad magaalo weyn joogtid sida Hargeysa camal waxaa la jiray Muqdisho Nairobi Addis Ababa magaalooyinka waaweyn then waxaa fiirinaysaa ganacsatada ugu waaweyn aa fiirinaysaa waxaa u tegaysaa waxaa leedahay macnaha waxaa raadinaysaa inay shaqo ay soo post gareeyaan oo soo geliyeen internetka haddii kale waa tegaysaa xafiiskooda waxaa leedahay shaqaale ma rabtaan qof oo developer aan ahay inteen ka shaqadiina ka apply gareeyaa ama shaqadiina kasoo galaa waxaa kaloo samayn kartaa waa sii diyaarin kartaa resumegaada ama CV-gaada sii samaysan kartaa waxyaalo badan inta aadan shaqo aadan tegin waxaas adi inaa issii dhistaa la rabaa so qofka markii aad u tagto shaqada inuu dhaho wow qofkan waaba qof diyaarsan waaye so waxaa la rabaa inaad internetka wax sii gashato waxyaalihii aad dhistay badanaa dadku waxay ku weydiinayaan natus waxaa samaysay so inaad sii diyaariso waxaa samaysay waxaa ku heli kartaa basically wax inaad dhisto un waaye so intaasaan kusoo gebagabeyn lahaa taas okay so qofaa wuxuu leeyahy ustaad website-yada database ama registration form loogu dhex samayn karaa micnaha koda sidee loogu samayn karaa website-ka database ama registration form loogu dhex samayn karaa sidee loogu dhex samayn karaa database ama registration form
so website-ka database haddii oo sameynaysid waxaa u baahan tahay hosting account u baahan tahay kabacdi hostinada waxay leeyihiin database-ka sameynaysaa badanaa MySQL waaye waa sameynaysaa waxaa isticmaalaysaa luuqadaha sida PHP camal ama let's say JavaScript waxaa isticmaali kartaa WordPress haddaad rabin adiga coding inaad samaysid WordPress isticmaalaysaa WordPress waxay leedahay hab foomam loo sameeyo waxay leedahay plugins fara badan waad samayn kartaa pluginkaad soo qaadanaysaa uma baahni maalmahan haddaad rabto inaad dhisto uma baahnid really coding xataa uma baahni inaad samaysid codingka waxaa weeye waa is good to learn laakiin haddaad rabto website inaad dhisatid it's very easy to inaad la dhiso adoona code taabanin xataa codeka waxaa weeye uu kaa caawinaya inaad wixii si fiican aad u dhisto maxamed go ahead duraan waxaan rabay maad maqlaysa horta si fiican waxaa tiri website code ma baahnid adoon code u baahnayn maad dhisi kartaa hadda WordPress oo kale yacni maxay ahayday sida maaragtay backending oo kale iyo waxaas adu website dhammaystiran dee waxaad rabtid aad ku samayn karaysid WordPress oo kale maad ku samayn kartaa mise waxoogaa waad yara xadidanta WordPress ma xadidnid waad samayn kartaa WordPress laakiin haddii aragtid waxyaalaha adig gooni ku ah oo customize haddaad rabtid inaad samaysid ama kalara aragtid inaad bedeshid waxaa laga yaabaa inaad faraha la gashaa u baahan tahay CSS yar xoogaha iyo PHP yar xoogaha faraha inaad la gashaa u baahan tahay laakiin inta badan 95% waa ku samayn kartaa website-ka WordPress bas hadda kaba soo qaadoo kale haddii aad haddaad rabtid inaad maaragtay aad yani inaad ama users oo kale inaad meel ku save garaysid oo kale dee sida markaad hadda database-ka isticmaalaysid oo kale sida MySQL oo kale maxay ahayday WordPress noocaas oo kale muu leeyahay mise front end iyo plugins iyo wax noocaas oo kale weeyaan wuu leeyahay waxaa jiro wuxuu leeyahay WordPress plugins waxa la dhaho sida telefonkaada camal apps ku leeyahay camal waaye so market waxaa jiro oo plugins oo badan jiro marka waxaa raadinaysaa just a form mid oo formka ka caawinayso boqolaalo waxaa jiro form oo free ah jiro kuwa lacagaa jiro kuwa lacagta xoogaa way ka roon yihiin kuwa freega laakiin kuwa free oo badan aad helaysaa waa soo shubanaysaa haddii aad inaad habkay u egtahay aad install garaynaysid kabacdi CSS kaada isticmaalaysaa CSS baranaysaa xirka baranaysaa just waxaa bedelaysaa un habka ay u egtahay colorka waxaas laakiin haddii aad ku anficaynin dan waxaa raadinaysaa mid kale plugin kala raadinaysaa badanaana hadda kaa dhexgal waxaan ka wadaa maaragtay markaad crowd operation oo kale haddaad rabtid inaad samaysid oo kale yani haddaad express ama isticmaalaysa ama Next.js oo kale waxyaabahaas kale aad samayn kartaa soo baahan WordPress aad samaynaysaa marka crowd operation waa ku samayn kartaa so badanaa WordPress habka u shaqeyso waxaa weeye waa formka already wuxuu ku xiran yahay database-kaada so WordPress markaa install garayso ood habaysid already WordPress waxay ku xirantaa database-ka formka aad soo shubanaysidna already wuu garanaya database-kaada meeshii la gelin lahaa wixii wuu garanaya asaa samaysanaya automatically markaad soo shubataba pluginka database-kaadu tagaya wuxuu sameynaya tableski wixii u baahnayd oo dhan kabacdina wuu ku habeynaya marka uma baahnid crowd operationka adi inaad kulli dhisto uma baahnid just formkuu ku dhisan yahay waad ungelinaysaa informationkood markaas safe unbaa leedahay صح marka xagee ku shubayaa kale WordPress marka hadda MySQL iyo waxba dad lahayn hadda haddii aad rabtid inaad ama product ama dad oo kale haddaad rabtid inaad save garaysid so markii aad WordPress bilowga aad soo shubanaysid waxay ku weydiinaysaa MySQL-kaada access-keeda ku weydiinaysaa true صح so WordPress bilowga install ugu horeeyaba waxay ku leedahay tell me database-kaada meeshuu ku jiro ii sheeg database-ka access-kii aad siinaysaa password-ka lagu geli lahaa wixii oo dhan waa buuxinaysaa formka meel baa install dhagsiinaysaa waxay samaynaysaa database-ka gelaysaa waxay samaynaysaa failasha loo baahnayo o dhan iyo waxyaala loo baahnayo dhan ay sii samaynaysaa marka hadhowdii marka plugin wax soo geliso already database-ku set up garaysan yahay WordPress set up garaysan صح marka ani website hadda waa lagu samayn karaa waad leedahay WordPress any website 30% internet website WordPress ku samaysan yihiin
marka of course waxyaalaha waxaa jiro oo waxyaalaha jiro qofku inuu ka taxadar u baahan yahay sida camal amaanka xoogaha because WordPress waa free waaye codekeeda dhan waa free so WordPress oo dhan waa open source waaye so waxaad samayn kartaa waa gelaysaa codekii dhan aad soo download garaysanaysaa taa macnaheedu waxay u furaysaa dadka oo raba inay qalad sameeyaan waxay u furaysaa inay codekii soo download garaysaan ay isku dayaan inay hackereeyaan website WordPress lagu dhisay waxaa yeelay isku code ay isticmaalaysaan labadiinaba way garanayaan codekaas u egyahay way garanayaan marka arrimahaas ammaanka waxaan ka ahayn WordPress waa wax kastoo qaban kartaa basically website markay noqoto website laakiin markay noqoto application gooni ah oo let's say oo aad customization ku sameynaysid WordPress customization keedu waa yara adag yahay so laakiin marka website yar aragto inaad dhistid oodan u baahnayn customization carada ka badan then ama features gooni ah let's say waxaa rabtaa feature dad ay isdiiwaan gelinayaan waxyaalahaas oo si hab gooni ah waxaa kaaga fudud inaa maybe aad samaysid laakiin waa lagu samayn karaa haddaad ku dadaasho waa ku samayn kartaa waxaa kaloo su-aal maa qabta brother waan qabaa go ahead maxay ahayd niyahow Next.js kaagi maad ku laaban kartaa because I was studying maxay ahayd Express so I want to see exactly the difference and how it works yeah waa kana this is the Next.js kan sameynaa kan waa kana website ka ku dhisan Alif Cloud hay صح marka database kana maxaad isticmaalaysaa marka Neo database ka so database ma isticmaalay because website kaygu waa static website way so waxaan isticmaalayaa kuwan la dhaho Vercel aan isticmaalayaa Vercelkan waxay ku siinayaan meesha adiga wax ku shuban lahayd ku siinayaan so Vercel waa free hosting camal waaye so sida digital ocean iyo Heroku iyo sida Heroku camal waa Heroku oo free ah waaye basically so hadda hadii aan galo GitHub kaygan ku galayaa I'm gonna log in with my GitHub as you can see waxay ku siinayaan project aad dhisi kartaa project waxaa kasoo jeedinaysaa GitHub so inta waxaa dhigi kartaa import project and then just waxaa dhigi kartaa import from GitHub repository kasoo jeedinaysaa waxaa gelinaysaa linkiga oo GitHubka way kusoo jiidaysaa ayagaana dhisaayo oo npm installka wixii dhan ayagaa sameynaayo so and then just waxaan sameeyey waxaan ku xiray maxaa la jiray domainkaygaan ku xiray you go to settings and then domains and then Alif Cloud domain aan ku xiray samajid alifcloud.com domain aan ku xiray and then domainkaasi markaa aadid then you will go to here website kana aadaysaa so ayagana hadda for example haddaan change ka sameeyo inta codekan haddaan change ka sameeyo on push gareeyo GitHub ku push gareeyo Vercel automatically wuxuu process gareynayaan so waxay leeyihin okay changes aa dhacay then isbedel ku sameeyo website-kii marka wax dhanba ayaga ku host gareynaya miya ayaga ku host gareynaya uma baahna wax kale uma baahna I don't think limit xataa inay leeyihiin so they will host failashaadi waxaad dhan way ku host gareynayaan everything and then adiga waxaad samaynaysaa bas waa raan gareynaysaa and then waxay ku tusayaan xataa habka u raan gareynaya wixii so if you go to like let's see building log camal haddaa fiiriso ma jeedid habka u process gareynayana ku tusayaan wixii sida camal Heroku camal si design ku tusayaan so that's Vercel waayo saasi ku fiican ayaga waa hore waxaa la jiray I think waxaa la jiray Zayat like at the Vercel Allah so ayagana dhisay Node.js ayaga dhisay Next.js ayaga dhisay so they build the Next.js framework oo dhan ayaga dhisay marka ayagana host gareeyo is the best way to host Next loo isticmaali karaa miya marka kuwa kale frameworkyada kale waa React waa Next.js so React aa lagu dhisay Vue.js mid gooniya leedahay magaceeda iga maqan hadda waan u garanayaa inay Next React isla socdaan laakiin waxaan ku leeyahay qoladan Vercelka ayaguna maxay ugu talagaleen Next.js bas bay ugu talagaleen in meesha lagu shubo miya website lagu sameeyay Next.js bas may waxaa kale ku shuban kartaa React-gaada so let's go back to mention home-ka so ma jeedo waxaan ku shubay React Node.js aan ku shubay inta ma jeedo waxaan sameynaya application oo email dirayso automatically macnaa qof dad email u dirayso aan sameynayo so waxaa ku samayn kartaa Node.js wax kastoo JavaScript la xiriiro sida Node.js React Vue.js Angular kulli waa ku samayn kartaa صح
Nice, bro. What's the difference between Express and Next.js? Is it like Express as an Express.js? I think Express baan garanaya, so Okay. I have done quite. So there is Express.js. Tan inaan ka wada umaleynaya this one. Or Node.js. Tana ka wada taasan ka wada Express waxaa weeye marka waxaa lagu dhisaa APIs aa lagu dhisaa sooma API. routes iyo middlewares iyo waxaya. Middleware API waxyaalaas. So waxay kula duwan yihiin tan waxaa weeye waa Node.js application Node.js la xiriirto waaye oo lala isticmaalo Node.js. marka waxay kula duwan yihiin waxyaalaha qabtaan ay kula duwan yihiin midna Next.js waa just front endiga la dhis waaye Expressna waxaa loo isticmaalaa back endiga camal oo waxaa lagu dhisaa API-da marka Next ma aha miya server side lama xiriirto macnaha lama xiriirto database iyo waxaas lama xiriirto ayada waxaa weeye codeka waxaa dhisaysaa oo JavaScript ah command aa isticmaalaysaa dhehayso build waxay dhisaysaa HTML-kii CSS-kii dhisaysaa caadi u dhisaysaa oo waxay kasoo jiidanaysaa React oo kale ka dhigaysaa miya marka React marka hore ku dhisaysaa so this is React waaye alright okay I don't know why this is like React ku dhisaysaa and then React marka ku dhisto waxaa sameynaysaa waxaa leedahay generate garee HTML oo static website ah so waxay sameynaysaa file-ashaan gelaysaa waxay leedahay okay about waxaan generate gareynayaa componentigan each one waxay ka dhigaysaa file oo waxaa la jira HTML ah and then staticgaasa marka website-kaada kasoo baxaya so this is kan waxaa waaye just HTML leh ahaan waa basic HTML sida camal adiga waaga hore file HTML caadi sameynaya camal waaye marka sign-in-kan hadda sign-in-kaasi ma sign-in-kan is different sign-in-kan waa link bas waaye waa application-keygii oo kii aan ka hadlayay oo PHP-da ahaa oo ka hadlayay waa this is the application-ka caadiga meesha ku jirto kaas PHP aan ku sameeyaa kan waa just marketing weeye front endiga marketing laakiin qofkii kabso qaad client ah oo customer ah they click sign in completely different waa kan waa just waa HTML wuu login gareynayaa and then that's application meesha ka isticmaalaya so ka duwan tahay so you're using PHP for that one I'm using PHP for that part yeah it's completely different and also waxaa isticmaali kartaa Chrome extension halkan ka fiirin kartaa of course halkan hadda igama tusayso PHP because application weli kuma jirno gadaal hadda aan laabano wuxuu tusaaya kan wuxuu ku dhisay Next.js serverka waa Vercel soo jeedid wixii dhan Node.js because Node.js waxaa run gareynaya React and Node.js lagu run gareeyaa and also Next.js na waa React so wixii dhan ku tusaaya inta PHP muxuu tusayaa marka PHP inaan login gareyno waa gudaha u sii galno because login page-ka waa basic JavaScript iyo waxaa waaye just JavaScript u dirayso request maxaa la jira PHP si ay database u check garayso so let's say camal wax qaladaan gelinay JavaScript aan waxayna leedahay sorry ma geli kartaan you know meesha PHP aan isticmaal lahaa that's the difference my extension kan waan isticmaala aniga xataa badan ku okay let me see waqtiga naga sii dhamaanayo let me answer a few other questions inshallah next week no alena inshallah waan ka jawaabi karnaa more okay thank you I will come around inshallah nuqso bir inshallah jazakallah khair badan hada ma santa aad baad ma santa okay inshallah Abdul yan kusoo gabagabeynaa Abdul go ahead assalamu alaykum ustad Duran wa alaykum salaam akhi soo dhow salaam alaykum ustaadiya dhamaan asxaabta Somali programmers WordPress aad loo sharaxay u maleynayaa su'aalihii horaan waxaan dhahay WordPress kan kusoo biiray ku socday marka WordPress ka sarbanaa su'aal ka weydiiyaan xitaa go ahead WordPress ka su'aalahan haddii aad ku dhisto waxaan dhahay e-commerce website or application ba qaybtii maxaan dhahay back endiga oo managementiga maxaan dhahay wax laga maamulayo website-ka oo lagu dhisi karaa qaybtaas markii noqoto oo macnaha maxaa ka wadaa database-ka iyo maxaa dhahay su'aalahan markii PHP lagu dhisay iyo su'aalahan ka soo qaada ama React oo kale ama hada JavaScript oo kale waxa u sameynaysaa Soomaha qayb admin panel ah oo qofku uu ka maamulanayo badeecadiisa hadduu mid tuuraayo hadduu mid soo gelinayo barayski oo kale marka WordPress ma leeyahay qayb noocaas oo kale isaga ha oo wax soo gelinayso
exactly ha already way sii dhisan tahay qaybtaas so WordPress way leedahay qayb noocaas oo dhisan oo habaysan ayaga habeeyeen marka adiga ma baahan inaad dhisid. Let me see if I can show you si u eg tahay. I'm trying to log in website-kayga. So I'm just log into one of my websites. Saanay u eg tahay backendiga WordPress. So this is the control, this is the maxalli jiri meesha laga maamulo markay noqoto waxayna ka bedeshid. So ha ma maqashaa? Okay, let me see. Can you hear me? Hello? I think connection guy. Ha brother, ma maqashaa? ما وأنا محمد بس والله فيه. ها واي مقشان سوما. I think إنه أنا عدت يوقع عملنا. ها ما أدري عادي ما كم مغلينا. Okay عبدول. يركب بحان مغلينا. Okay عبدول. Okay عبدول من مقشاد is good. hadda si fiican ku maqlay qaybtan waa arkay laakiin qaybtan waa halo may maqashaa hadda haa ku maqlaa haa go ahead codkaada gogo'aya umaleynaya ana fahmin aad ima soo gaarayo okay so just basically sound why WordPress ka soo egyahay plugins kana ku dardarsanaysaa oo ah application gooni ah qaybtan waa Soomaha qaybtii lagu dhisay isaga markii la dhisay website tusaalahan la soo gelinayo ama wax la soo gelinayo exactly ha kadib waad istii ka soo qaad qofkii macmiilka ku wareejisay isaga iyo store-kiisa oo dhameystiran qofkaas meel uu ka maamulanayo hadhow badeecadiisa uu soo gelinayo inta la ka maamulanayo badeecadaha so waxa gelinaysaa plugin gelinaysaa oo lagu maamulayo badeecadaha so kabso qaad WooCommerce amal waxa jira application la dhaho intii soo galaysa marka WooCommerce-ga then inta waxa ku qoranaysa amal products ku qoranaysa add new product amal ku qoranaysa ka bacdi product cusub ku darsan karaa wuxuu leeyahay product-ga magaceeda description-ka waxaas pricing-ku gelinayaa ka bacdi wuxuu leeyahay save so product-ga waxay galaysaa qaybta product-ga so that's usually habka ugu sameyn lahayd hadii qofku maamulanayo isaga laakiin dee qofkaas haddii uu WordPress-ki wax fikir ka haysanin way adkaanaysaa Soomahan way adkaanaysaa so waa inaad u samayso xogaa training inaad u samaysid waaye so usually ani waxaan sameeyaa just want to saa qofka waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan dhahaa taabanan qaybahan sida camal settings-kan ha taabanin because usually haddaa bedeshid setting-ka website-ka uu ka baxaya meesha so waxaan dhahaa setting-ka taabanin don't touch user-iska camal password-ka haddaa bedesho user-iska ama aad qof kusoo dirtay uu access garan karaa qofka website-ka let's say linkigan camal aad wax ka bedeshay basic linkigan waa base URL-ka haddaa wax ka bedesho website-ka dhan crash uu noqonayaa so I tell them don't touch waxyaalahan kale just waxaa taabataa un qaybtan oo productiga productigaana loogu daraa that's it don't touch anything else aan dhaha waa u sheegaa haddaa wax kale in lagaaga bedelo ani soo aan dhaha taas xogaa maxaa la dhahay WordPress-ku waa ku yara saxab haddii marka code caadi la dhisayo qofka waxa u samaynaysaa qayb admin panel ah oo admin management ah oo xogaa iska fudud I think waxaad siin kartaa userska waxaad siin kartaa different role aad siin kartaa so let's say kan haddaartu inaynan arkin qaybahan oo khatarta oo website-ka shutdown ka dhigayo intaa ka samayn kartaa I think there is a hub loo customize gareeyaa jiro plugin aa jirto lagu sameeyo so waxaa leedahay qofka waxaa tustaa un qaybahan bes tusaa leedahay oo productiga bes so there is a way oo lagu dhihi karo ha tusin waxyaalaha kale oo dhan way jirtaa oo just tus qaybta aad u baahanta bes way leeyahay so it's already waxaas way kusii build garaysan yihiin and it's just waxa way habka loo customize gareynaa inaad adiga taqaanid and then qofkii waa ka bixinaysaa qofka hadduu ku fiican yahay website-ada dana u daynaysaa wixiisi asaga ha customize garayso asaga hadduu iska hadlaya si u taalaa laakiin haddaad rabin inayna iska hadlaynin then waad ka disable garayn kartaa qaybaha muhiimka qaybta backendigana ma hal mar ma natusi kartaa WordPress backendigiisa يعني سوري waxaan ka wadaa database database waa just basic database waaye so it's like waa sida camal MySQL ka caadiga ah waaye let me see inaan soo heli karo let me just get let me show you just example beside to size uu egyahay database ka actually I can just go to local hostiga just go to local host meeshaan ka geli lahaa kii aniga ahaa my serverkayga caadiga so local hostiga waa kana just we go to php my admin localhost.com localhost bas aan tagay of course waxaa soo gashanaysaa zamki wixii so database-da waa kuwaana soo maaha
So hadda for example camal I don't know WordPress in igu jiro, let's see. Oh yeah, WordPress kana waxaan sameynaa inta waxaan ku sameynaa plug inaan sameynaaye oo zakat calculator la dhahaan sameynaaye. So WordPresska marka table wixiisa saan u egyihiin. Prefix uu leeyahay, prefixkan waa customize garan kartaa haddaad rabtid, laakiin filashaan automatic la asaas sameynaya filashaan. So it will create all these files automatically. And then kasoo qaad plugin cusub haddaa kusoo darto waxaa laga yaabaa inuu ku daro mid cusub oo table cusub. Badanaa userska waa kana, if you click users you could go to qaybta userska waa kana qofka oo maamulo waaye website-ka oo hadda userskan ka hadlaynay oo halkan these are the userska waa kana, and then of course password encrypt garanaya, and then just you have all this waxaana asaa kusii dhisaayo uma baahna tablekan hada inaad create garaysid. Options haddaad tagtid waxaa arkaysaa website-kii linkigiisii. So kana camal hadda meeshaan waxaan ku qoran yihiin waa halkan settings adigoo taga waaye. Just go to settings and then go to general, you will see the website magaciisa iyo website-ka maxaa la jira linkigii wixii halkan ku qoran yihiin. So halkana the blog name, blog description, highlights and all this stuff. So all this administration marka is already automatically built by WordPress. صح marka hadda halkan users oo kale haddaad ku dartid oo kale hadda qaybtan WordPress-ka hadda halkan maaragtay let's go to kan oo kana hadda ku jirnaan tagno. So I was creating a zakat calculator. Let's see in same okay, let's go to computerkayga aan tago meeshii ku jiraan waxyaalaha. And I don't want to take too much of Hogayr. Let's see. So file ka aan isticmaalayo waxaa la dhahaa zakat. So if we go to zakat, which is this one, so website ka kana zakat, we go to the back endiga. We go to back endiga. No, not that one. I think it's zakat calculator. Okay, so we logged in. So this is the .wordpress and we go to users. So basic so each one is different. So the zakat calculator. Let's add something new here. How do you add something new? Okay, let's just copy this one and then change your code. Zakat usub. Let's say I'm a user usub. Can we know how the one word in usually. We'll keep the password the same. Yeah, we'll keep the password same. Kana waan ka bedelina user cusub, and we'll keep the rest the same. And then just go. So hadda waxaan ku darnay new user waa kana user cusub. If you go here and refresh, it will show new user. User cusub. That's what So yeah, so it's already connected. Waxaan isku xiran yihiin. Kan hadda halkan ka delete gareyna. If we delete and delete and we go back, it will show deleted. So it's all already WordPress had kusi sameysi. So you don't need to set up anything. Set up and then plugins ka waxa soo shubanaysa. So I was just creating plugin cusub aan sameynaa waa kana. This is the plugin I was creating inaan publish karayaan rabo mardo inshallah. Other plugin from scratch what ka sameynaysa? From scratch ka sameynaa. I was just it's a calculator camal waaye oo dadka zakaadka u calculate garayna. So haddii aad zakada bixinaysid sanadkii, you could use plugin kan inaad ku calculate garaysid dhaqaalaha haystid iyo waxyaalahaas. And also API isticmaalaysa oo silverka iyo goldiga iyo pricekooda soo jiidanayso. So awesome bro. Marka cashar kalena waan ka bixiyey oo markay noqoto dhinaca WordPresska oo dhowr cashar waxaan ka bixiyey 6 cashar camal oo sharaxaya sida WordPresska loo set up gareeyo loo sameeyo website-haas. bas set up-kii waxa waan aqaanaa hadda ka hor xataa blog waxbaan ku sameeyey laakiin qaybtaas iga maqnayd maogta qaybtan hadda ku weydiinaya maaragta ayaa iga maqnayd. No problem inshallah. Waxaan waqti qaataan just in la sameeyo waxyaalo lagu bedelo waxaas aqri waa fahmaysaa marka dambe. It just takes time inshallah. Yeah, it takes time. Marka waqtiga iga dhamaaday. I hope Abdul inaan kaga jawaab su'aashaada. Waa next week noo soo laabanayna inshallah. More time aan gelinayna waxyaalahaas iyo waxyaalo kale badan. Marka dadka su'aalaha igu soo weydiiyey qoraalkana mahadsantihiin kama gaarin laakiin insha Allah waan koobi kareynayaa meelaan gashanayaa
next week aan ka jawaabi doono hadduu ilaah yiraahdo intaan kusoo gabagabeynayaa information waxyaalahan oo inaan share gareynin intaan kusoo gabagabeynaynaa dhammaantiin insha Allah kasoo qayb qaata next week discord-kana soo gala wixii su'aalo qabtaan discord kusoo tuura insha Allah waa linkaga jawaaba dad badanaa ku jiro dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah khayr idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh